kulankan waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar wakiil ka socda deegaanada dalka mas'uuliyiinta wasaaradda horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya oo ugu horeysay wasiirka wasaaradda horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha Engineer Aisha Maxamed mas'uuliyiin ka socotay Somaliland iyo marti sharaf kale madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar oo kulankan ka hadlay ayaa sheegay in isbedelkii kadib ahmiyad gaar ah la siiyay horumarinta magaalooyinka deegaanka taasoo guul wax ku leh laga gaaray Mudane Mustafa Maxamed Cumar madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ayaa sidoo kale sheegay in kulankan uu wax weyn ku soo kordhin doono isku xirka horumarka magaalooyinka ሀገራችን ኢትዮጵያ ባለፉት 3 ዓመታት በፈጣን የለውጥ ሂደት ውስጥ ስትራመድ ቆይታለች። saddexdii sano aynu soo dhaafno waddankeena Itoobiya waxa uu ku soo guda jiray horumar xawliya sida aynu wada ogsoonahay isbedelku waxa uu gaadhay miyi iyo magaalo sidoo kale ma jirto qayb ka mid ah bulshada oo uusan gaadhin horumarku si aan waddankeena uga dhigno wadamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay una noqono tusaalaha horumarka iyo barwaaqada ee Afrika waxaynu ku guda jirnaa fulinta qorshayaasha horumarineed ee kala duwan waxaana la isla qaateen horumarinta magaalooyinku ay dabdhaxad u yihiin hirgelinta qorshayaashani waxaana loo baahan yahay diyaarinta qorshe magaaleedka gaarka ah ee heer deegaan si looga qayb qaato meelmarinta qorshe magaaleedka gaarka ee dalka qorshe magaaleedkani gaarka ayaa la filayaa inuu xiriir wada shaqeyn ka dhex abuuro deegaanada iyo magaalooyinka dalka sidoo kale waxa uu abuurayaa isku xidhka dhaqaale ee lala yeesho dawladaha dariska ah waana fursad lagu hirgelin karayo horumarka iyo barwaaqada guud ahaaneed waxaana ku dardaarmaya in magaalooyinku ay hirgeliyaan qorshe magaaleedkani gaarka ah si loo xoojiyo wada shaqeynta ka dhaxaysa magaalooyinka iyo deegaanada magaalooyinka iyo tuulooyinka ku hareeraysan iyo magaalooyinka iyo wadamada jaarka ah deegaanka Soomaaliduna waxa uu fulin doonaa qorshahani isbedelkii kadibna deegaanka Soomaalidu wuxuu ahmiyad gaar ah siiyay horumarinta magaalooyinka qorshe magaaleedkani gaarka ahna waxa uu qayb lixaad ka qaadan doonaa horumarinta magaalooyinka deegaanka oo ay ka tahay magaalada Jigjiga Engineer Aisha Maxamed wasiirka wasaaradda horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ayaa sidoo kale sheegtay in xilligan lagu jiro ay dadku si weyn u danaynayaan nolosha magaalooyinka oo ay noloshoodu ku tiirsan tahay magaalooyinka ከተሞች ለሀገራት እድገት የሚያበረክቱት ማህበራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ አስተዋጽኦ ከተሞች የሰው ልጆች የለውጥ ማዕከሎች መሆናቸውን የሚመሰክር ነው ka qayb qaadashada magaalooyinku ay ka qayb qaataan horumarka dalka ee dhinacyada siyaasadda bulshada iyo dhaqaalaha waxa ay marxaati ka yihiin in magaalooyinku ay yihiin xudunta isbedelka bini'aadamka sidaas si leeg hadii hoggaan sax ah loo qaban waayo waxa ay dhaawac xoogan u geysan karaan horumarka guud ee dalka hase ahaatee magaalooyinka ka jira dalkeenu kaliya waxa ay muujiyeen horumarka dhinaca balaca ah balse markaad eegto dhibaatooyinka dhinacyada daafaha adeegyada aasaasiga ah ee u dhameystirneen iyo arrimaha la xiriiro waxa aynu ku khasbanahay la imaanshaha qorshayo dhibaatooyinkaasi wax lagaga qaban karo waqti xaadirkani magaalooyinka dalkeenu waa 100% marka aad eegto balaca guud ee dalka balse marka aad eegto dhinaca dhaqaalaha waxa ay daboolaan 58% haddaba hadii aynan la imaan qorshe kor u qaadaya dhaqaalahani ka soo baxaya magaalooyinka waxa hoos u dhici doona qaybta ay ku leeyihiin ka qayb qaadashada dakhliga guud ee dalka hadii aynan magaalooyinkeena ku hogaamin qorshayo sax ah lama heli karo wax soo saarada iyo faa'iidooyinka dhinacyada badan leh ee laga heli lahaa magaalooyinka sidaas darteed diyaarinta qorshe magaalaha gaarka ah ee deegaanadu waxa uu kor u qaadayaa isku xidhka suuqyada ganacsiga ee magaalooyinka waxa uu qayb ka qaadanayaa qorsheynta qorshayooga mashaariicda horumarineed ee magaalooyinka kulankeenani maantana waxa uu tusaale u yahay sida ay deegaanadu ahmiyad u siiyeen qorshahani waxaanan rajaynayaa in ay deegaamadu ka dhigan doonaan qorshahani qorshe maalmeedkooda ugu muhiimsan kulankeena maantana taasi ayuu albaabada u furay
intii uu kulankan socday waxaa lagu soo bandhigay arrimaha isku xidhka iyo mideynta magaalooyinka deegaanada dalka gaar ahaan qorshahagaha magaalooyinka dhaqaalaha iyo bilicda. haddaba wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha ee dowlad deegaanka Soomaalida Dr. Cabdifataax Sheekh Biixi ayaa sheegay in kulankan ay faa'iido weyn ugu fadhiyo magaalooyinka deegaanka Soomaalida. waxa la rabo inuu ka soo baxo waxa weeye koow xafiis baa la aasaasaya wax la dhaho project office mashruuci oo xafiiskani lahaa oo dad Soomaali ay ka shaqeynayaan dadkaasi qaar waa suuragal in banaanka laga keeno qaarna dadkii xafiisyada ka shaqeynayay macnaha waa waxyaabo macnaha faahfaahinta oo dib loo gali doono laakiin waxa ugu muhiimsan ee hadda imanay waxa weeye in xafiiskii awal hore heer qaran ahaan maadaama la daafuray shaqadii si loo bilaabo waa inta dad cid qaabilsan wixii waa inay jirtaa marka waxa la isla gartay project office baa la sameyn wuxuu hoos tagi doonaa xafiiska horumarinta magaalooyinka dhismaha structure kala socdo wuu jiraa laakiin ka inta la gaarayo wuxuu hoos tagi doonaa xafiiska kadibna laba faa'iido ka helaynaa xafiiska in la sameeyo sababtoo xafiiska marka la sameeyo hay'addu wayna taakuleynaysaa baan shaqada laakiin waxaan qabanay dhalinteena Soomaaliyeed inay shaqadii dad inaga qabtaan wax kasta oo waxaan rajaynaynaa macna dadkaasi waxaan ku saabtay in dad wadanka la jecel kale inay yihiin waa wadankoodii deegaanka Soomaalidu waa dalkoodii marka in ay wax kasta oo qof kale u fududeysan lahaa inayna fududeysan waa qodobka labaad capacity building maadaama hay'ad international ah oo waxaan in badan ka soo shaqeynaysay ay hawsha naga taageerayso hay'adaasi inay xafiiska nala dhisto nala capacity na tababarkii wixii ay u baahnaayeen documentationkii ka caawiso bilow ilaa dhamaad marka dal kaliya ma dhisayno dadna waan dhisaynaa mustaqbalka dadkaasi waxa laga yaabaa meel kale inta tagaan iyaguna sida hadda hay'aduna caawanayso ay u caawiyaan ama magaalooyin kale iyo deegaano kale ay caawiyaan mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale waxay garabta booqdeen xabsigii hore dadka lagu ciqaabi jiray loo yaqaanay jeelugaadeen kaasoo maxaabiis hadda ka hor lagu soo xidhay ay u sharaxeen qaabka dadka loogu ciqaabi jiray xabsigan.